Raheem Sterling ayaa tilaabo cajiib ah sameeyay markii uu la kulmay laba dumar ah oo darbi jiif ah. Sterling ayaa u socday inuu soo qaato casho markii uu arkay laba dumar ah oo darbi jiif ah oo jiifa bannaanka maqaayadda uu cuntada ka rabay. 30 sano jirkan ayaa u ciyaaray 4 kooxood oo kamid ah kuwa ugu waaweyn Ingiriiska, waana Liverpool oo uu u dheelay 2012 ilaa 2015. 2015kii waxa uu ka mid noqday kooxda Manchester City ilaa uu ka tagay sanadkii 2022. Chelsea ayaa iibsatay 2022 ilaa iyo haddana iyada ayaa iskala milkiyadiisa, laakiin kal ciyaareedkii 2024-2025 ayuu amaah ugu soo ciyaaray kooxda Arsenal. Laakiin Sterling 4 bishan June 2025 ayuu ku dhawaaqay inuu dib ugu laabanayo kooxdiisa Chelsea isla markaana uu soo gabagabeynayo heshiiska amaahda ah ee uu kula joogay Gunners. Haddaba halkii uu Sterling iska dhaafi lahaa labadaasi dumarka ah ee darbi jiifka ah, waxa uu ka codsaday iibiyihii maqaayadda uu cashada ka iibsanayay inuu u diyaariyo 2 casho oo dheeri ah. Waxaana uu u sharaxay iibiyaha maqaayadda inuu door bidayo inuu siiyo cunto labada dumarka ah ee darbi jiifka ah halkii uu siin lahaa lacag kaash ah, maadaama uusan rabin in loo isticmaalo lacagtiisa waxyaabaha maanka dooriya sida khamriga iyo wixii la mid ah. Isagoo si caadi ah ugu labisan funaanad iyo surwaal kuwa guriga lagu jooga ah ayuu Sterling waxa uu labadii casho guddoonsiiyay labadii dumar ee darbi jiifka ahaa. Iibiyihii maqaayadda ayaa mar dambe sheegay inuusan weligiis la kulmin qof ka dabacsan Raheem Sterling. Runtii waxa uu falay xiddiga reer England ee Sterling waa ficil qurux badan oo naxariis ay ku laran tahay.